suuqa casriga ah ee Xayaat Market oo la jaan qaadaya suuqyada wadamada hormaray ayna ku idil yihiin dhammaan adeegyada ku gidaaman baahida bulshada ayaa qaaday tallaabo lagu qancinayo macaamiisha ka adeegata suuqaasi si loo raali geliyo bulshada ku dhaqan degmooyinka caasimadda ee ku xiran suuqan ayay garwaaqsadeen maamulka sare ee suuqa in qiimo dhimis ballaaran lagu sameeyo dhammaan badeecadaha kala duwan ee lagu iibiyo suuqaasi agabyada bulshada muhiimka u ah ee sida gaarka ah qiimo dhimista loogu sameeyay waxaa ka mid ah qalabka lagu qurxiyo guryaha iyo xafiisyada maacuunta kabaha ragga dumarka iyo caruurta iyo agabyo kale Axmed Xaaji Ibraahim Macquul oo ka mid ah maamulka sare ee suuqa Xayaat Market ayaa ka warbixiyay qiimo dhimistan iyo xilligan waxa ku soo beegay dhammaan macaamiisheena ku soo dhawaada Xayaat Market sida caadada ahayd waxaan sameynay qiimo dhimis taasoo ah inaan ku sameynay dhammaan kabaha ragga iyo dumarka iyo caruurtaba aan ku sameynay iyo si lamida maacuunta oo dhan ayaa waxaan gelinay qiimo dhimis iyo decorationka guryaha waxa lagu qurxiyo iyo qaybo kamida foodka ayaan gelinay iyo carpetiska ayaan gelinay taasoo ugu daneynayno bulshadeena inay ka adeegtaan suuqa Xayaat Market sidaas la mid ah waxaan u sheegaynaa macaamiisheena oo rabnaa inaan waliba la socodsiino inaan bil walba bisha 1 ilaa 5 qiimo dhimis ayaan gelin doonaa suuqa taasoo oo galnayna inuu shacabka uu si fiican u wada adeegto sidaa daraadeed waxaan leenahay macaamiisheena aad iyo aad u mahadsantihiin Xayaat mar walba waa garabkiina way idin garab taagan tahay waxaan diyaar u tahay mar walba inay baahihiina حقب ترتو نوع والباقي تاي مركز سود وهذا هذه هذا ما سنت